tixanaha qaybta koowaad ee aan ku dulmarayo taariikhaynta Afrika inagoo horay aan u soo qaadanay goosgoos ku saabsan isirka iyo faraca qoomiyadaha ka soo jeeda boqortooyada Kush. imikana qoomiyad ka tirsan qoomiyadaha ka soo jeeda Kushitic ee lagu magacaabo Maasai. Kenya waa meel caan ku ah Safari Africans waxa lagu yeedho waxayna hooy u tahay qoomiyada Maasai. Maasai waxa ay caan ku yihiin dhaqankooda gaarka ah iyo labiska hidakaydkooda. Maasai waa qoomiyad asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika oo dad reer guuraa ah oo dega Kenya iyo waqooyiga Tanzania. dhaqankooda iyo labiskooda guryahooda ku dhow dajiinooyinka ciyaaraha ee lagu ciyaaro ee bariga Afrika. Maasai waxa ay ka mid yihiin qoomiyadaha ugu horeeyay ee Afrika waxa ay caan ka yihiin adduunka maxaa yeelay waxa ay xiriir la leeyihiin dajiinooyinka iyo kaydka qaranka ee Afrikada. luqadda ay ku hadlaan ayaa lagu magacaabaa Maa oo ah luqad ay ku hadlaan dadka ka soo jeeda saxaraha Niilka oo la xidhiidha diinka iyo waliba Nuwer. waxa ay sidoo kale ku hadlaan luqadaha rasmiga ee Tansaaniyiinta iyo Kenya ee lagu magacaabo Sawaaxiliga iyo Ingiriiska. tirada dadka Maasai-da hadda waxa lagu qiyaasaa 900,000 oo qof inkasta oo ay dawladaha Kenya iyo Tanzania ay dajiyeen barnaamijyo lagu dhiirigeliyo reer Maasai in ay ka baxaan noloshooda caadiga ah oo ay dhaqan ahaan la nool yihiin. haddana dadka Maasai waxa ay ku dhaqmaan caadooyinkoodii hore ee ay weli haystaan. si kastaba ha noqotee tani way isbedelaysaa inkasta oo ay tartiib dunidu casriga ah ay u sii korayso. imikana dulmar iyo nuxur ku saabsan taariikhda Maasai-da. marka loo eego taariikhda afka ee qabaliga Maasai waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa waqooyiga harada Turkana waqooyi galbeed ee Kenya dooxada Niilka hoose. waxay bilaabeen in ay u haajiraan koonfurta qarnigii 15aad waxa ayna yimaadeen dhulalka Tanzania iyo Kenya oo ku fidsan bartamaha Tanzania iyo waqooyiga Kenya inta lagu guda jiray qarnigii 17aad iyo qarnigii 18aad. dhulka Maasai-du degto waxa uu gaadhay cabirkiisii ugu badnaa qarnigii 19aad markii ay soo gaadheen inta badan dooxada weyn ee loo yaqaano Great Rift Valley iyo dhulal ku dhow Dodoma iyo Monte Marsabit. waxa ay lo'da ku raacaan bariga fog ee xeebta Tanga ee Tanzania.
waxa ay isticmaalaan gaashaamo iyo waramo laakiin waxa aad looga baqay in ay tuuraan orinka waxa loo yaqaano ama af Soomaaliga koonfurta waxa loogu yeedho wadanka taas oo ay u abaabileen naadiyo qabiir u leh ku dagaalanka shiishka waranka iyo gaashaanka warbixinta ayaa tilmaamaysa dagaalyahanada Maasai ee xoogga la saaray ayaa loo sheegay in ay u gaareen Kenya 185 kadib markii ay xaalufiyeen keynta Wokafu ee koonfur bari Kenya dagaalyahanada Maasai waxa ay u hanjabeen Mombasa xeebta Kenya natiijada guuritaankani waxay horseed u tahay Maasai oo hadda ah kuwa ku hadla luuqada koonfurta ee Nilotic waxa ay ka mid tahay luuqadaha Afro-Asiatic barnaamijka yaga tixanaha aan ku eegayo taariikhaynta geeska Afrika halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtiisa koowaad ee aan ugu waramayo qowmiyadda Maasai anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa tarjumay soo saaray idinana socodsiinayay intaan dib uga kulmi doono barnaamijka yaga iyo qaybtiisa xigta waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo